waxa abaara saddexdii galabnimo garoonka diyaaraduhu ka hadaan caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ka soo degay safiirka wadanka Denmark u fadhiya dalka Kenya Mr. Smith Emerson ugu horeyn waxa dalka Soomaaliland ku soo dhaweeyay Dr. Saad Ali Shire wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland saaka waxa ina soo booqday oo halkan inoogu yimi safiirka wadanka Denmark u fadhiya Nairobi ujeedada ka dambeysay socdaalkeedana waxay ahayd inay u kuur gasho xaaladda abaaraha iyo inaan ka wada hadalno sidii aynu xoojin lahayn xiriirka labada wadanka Denmark waa wadamada aad iyo aad runtii inoo taageera sabab socotaan baba qayb weyn bay ka qaatay ayuu wadanka Denmark uu ka qaatay sanduuqa horumarinta Soomaaliland haddii runtii halkan ugu mahad celiyo dawladda dadka Denmark ba sida weyn ee xad kale qiimaha leh ay noo taageeraan waxaan kaloo doonayaa inaan ka faa'iideysanayo fursadan aan ugu baaqo dadka reer Soomaaliland in kastoo imka roobku inoo curtay aan runtii la isdhiganin oo aan la odhanin roob baaday halkaas dhibaatada ku dhamaatay in sidii dadaalkii aynu wadnay sidaynu taakulan lahayn walaaladeenna abaaraha ku tabaaloobay inaynu halkii ka sii wadno xoojino insha Allah. Assalaamu calaykum. Kale safiirka wadanka Denmark u fadhiya dalka Kenya ayaa tilmaantay inay dalka u timi sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen abaaraha daba dheeraaday ee dalka Soomaaliland ka jira. Yes, thank you very much, Minister, and thank you for giving me this opportunity. It's a pleasure to be back in Somaliland and visiting and having a good dialogue with the government here. This time around, one of the main issues we have discussed is the drought situation. I want to say that from the Danish side we are following the situation very closely. I had some of my staff here also earlier this week to look at how the situation is developing. We are very aware that it's a very serious situation that is affecting a large proportion of the Somaliland population. I would like to say that both Denmark and the rest of the international community are ready to support Somaliland to address the drought situation. We have from the international community committed more than $600 million to address the humanitarian crisis both in Somalia and Somaliland. وعبد السلام أحمد عود عبد الجرماني بولشة TV هرقيسة.